ayaa waxa isoo wacno shaqo ku jira nin saaxiibkaya oo wiil walaal waxa ila soo hadashay gabar oo baadiriyad ah oo ka soo jeeda dalkan South Sudan South Sudan arin mucjiso ay ii sheegtay markii waxaan rabaa gabadhaas inaad la hadashid kaalay buu igu dhahay masaajidka Amsa ee magaalada Melbourne ma arkaysaa si aad qisada uga dhageysatid gabadha waxay rabtaa talo in laga siiyo arinta ay la kulantay صح waan soo baxay Melbourne bay ahayd masaajidkii aan tagay labadii duhurnimo ballansanay gabadhii way mashquulshay xilliga marka telefoon baan ma arkaysaa aan kala hadlay Allahu musta'an gabadhii iyada ahayd ilaahay khayraasiya waan wareystay waxaan ku yiri maxaad la kulantay subhanallah arin waxay ii sheegtay cajiiba gabadhii waxay igu tiri muddo 5 bilood ayaa habeen walba iyo maalin walba waxa dhacda qof magaciisa igu sheegay Jabir al-Ahmed ayaa riyada igu imaada wiila hadlaa marna aayado quraan ayuu igu dul aqriyaa bay tiri waa iyadoo jiifta hurdaysa صح ayadii quraanka ana hurdaya markii leegu bilaabo aan soo kaco oo indhaha aan kala qaado ama intaan indhaha kala qaadin ka hor waan soo kacay waan soo jeedaa laakiin sariirtiidan saaranahay still waan maqlayaa ayadii quraanka ninka igu dul aqrinayo gabadha marka waa Christian waa baadiriyad kaniisada ayay ma arkaysaa kutub ka bixisa ay ka wacdisaa Bible ka sharaxda professional weeyaan waliba waa qof soo baratay oo diploma ku soo qaadatay baadirnimada family ka ay ka soo jeedana waa family sidaas oo kale diinta Christian ku adag marka maanta axada program bay lahayd baad maanta axada oo taariikhdu hadda ay tahay 3 bisha March program bay kaniisada ku lahayd inay ka hadasho oo iyada inay ka hadasho ay rangareysa ay ahayd صح marka waxay dhahday muddo 5 bilood ah quraankii waa la bilaabayaa waan soo kacay waan soo jeedaa indhahayga way xiran yihiin waan maqlayaa ciyaalkayga markay hadal bilaabaan quraankii waa la joojin markaan musqusha aado waa la joojin subhanallah ayadaha marka ay ii sheegtay lagu aqriyo gabadha ay waliba ay xifdisan tahay صح waan idin la wadaagayaa walaalahaygan waa la wadaagayaa haduu ilaahay idmo marka mar waliba waxay moodaa ama qof guriga ku jira inuu cajalad quraan daaray maha waxay riya ay ku aragtay kaliya quraankii bay maqlaysaa say gabadha ii sheegtay iyadoo soo jeeda صح waxaad ka dareemaysaa ayadaha ay sheegtay in lagu dul aqriyo cajiib ah صح marka way baxdaa dariskay u tagtaa waxay dhahdaa qof muslima miyaa jira oo ereyadan degan oo ma arkaysaa quraan ka shiday guriyaha dariska ah gaaladii waxay dhahaan may meeshan qof muslim lama degna marka gabadhii waxay ma arka arinta sababtay guriga degnaan jirtay inay ka guurto because yes waxay u aragtaa iyada say ii sheegtay masiibo iyada ku soo wajahan inay tahay صح waxay tiri waxa laga yaabaa inaan soo waalan rabo arina igu soo wajahan guriga waxay ugu jira marka gurigii way ka qaxday because qof u sharxana wixii may arag xaafad kale degtay صح marka arintaas ay haysatay igu tiri gabadhii suuradaha lagu aqriyo marka ayay ii sheegtay waxa kamid ah suurada lagu aqriyay oo wadaadka uu ku aqriyay aayada ugu horeysay suurada ugu horeysay waxay suuratu al-asr waxay ahayd wal asri inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mar waliba uu yimaado suuratu al-asr buu igu dul aqrin baytir waan garan waayay anigii marka haddana maalin kale ii soo laabtaa habeen kale ii soo laabtaa suuratu yaasiin buu igu dul aqrin subhanallah yaasiin suuratu yaasiin buu igu dul aqriyaa ha waa isla ninkii magaciisa ay ku sheegtay Jabir al-Ahmed suuratu yaasiin wal quraan al-hakim ayadii buu sii wadayaa waan garan waayay markii quraanku igu bilaabto waan gariirayaa bay dhahday waan soo kacaa haddaan soo kaca xitaa wali quraankii waa shiday guriga ka daaraya ciyaalku markay hadal bilaabaan waa la joojinaya haddaan musqusha aado waa la joojinaya haddaan soo laabtana quraankii waa daaran yahay inta waxa si dheer bay ugu dhahday 5 salaadood adinka markii la gaaro waa la adima adin bay maqlaysaa waxay dhahay haddaan guriga joogo haddaan kaniisada aan joogo 10 aan bixinayo haddaan suuqa joogo adinka salaada xilligeeda markii la gaaro waa la adimaa
adin caadi ah oo min bidaaya ilaa nihaaya la dhamaystirayo waxa igu darneed bay tir maalmaha kamid ah anoo kaniisada ku jira 10 bixinaya kaniisadii baa subhanallah ayaa adinkii ka dhawaaqay waan gariiray hadalkii waa sii wadan waayay dadkii kaniisada ku jiray wada maad hadashid maxaa la aamusan tahay markaas ay culeys ay haystay suga waan la yaabay bitir marka ana Allahu akbar mar walba waa google gareeya muslim prayer times ban fiiriya bay dhahday waxa ii soo baxda adinka xilliga maqlay inay aad xilli salaada oo adinka muslimiinta ay adimaan waxyaaba cajiibka carabiga marka ayada markii aadaanka iyo suuradaha iyo luqada carabiga taqaana ma sha Allah jazakallahu khayr su'aal fiican gabadha waa gabar Suudaaniyada luqada carabiga way taqaanaa South Sudan weeyaan Khartoum ay waliba ku soo dhigatay high school-ka marka luqada carabiga si fiican bay u taqaanaa bible-ka isagoo carabiga haysata way dhigtaa marka adinkii way garanaysaa subhanallah marka waxay dhahday anoo kaniisada ku jira ayuu adinkii sida ay ugu dhawaaqayaan mar waliba meel waliba aan joogo waxyaaba cajiibka marka ii sheegto waxa kamid ah salaada macna xilliga waa bariga markii la gaaro laba jeer la adimaa bitir wala fiirso subaxii waa subaxii oo kala duwan cajiib waa labada adin oo fajrka subhanallah hadii waa adinka dambe salaadaha kale afar adin kaliyaan maqlaayay tiri marka inta waxa sii dheer oo aad iga yaabisay gabadha ay ii sheegtay waxa dhacda bay dhahday wadaadkii inuu ii imaado oo igu dhaho af carabi uu sheegayaa wuxuu leeyahay shahaadateynka ku dhabaaq haka xarimin dadka muslimiinta ah in ay kula dabaaldegaan ay kula farxaan ee kaalay oo nagu soo biir waqra al-fatiha macna اقرأ الفاتحة معنا صح gabadhii waxay may garanayeen marka shahaadateynka iyo wadaninka oo ka hadlayo iyo wixii ma fahmayso oo shahaadateynka la rabo in lagu dhawaaqo iyo markii nagu soo biirtaan iyo way fahmi laadahay wixina 5 bilood bay ku socdaan 5 bilood bay ku socdaan ay guriga kaga soo guurtay guri kale soo degtay wali quraanka waa socdaa adinkiina waa socdaa ninkii uu soo laabanaya wuxuu leeyahay kaalay oo nagu soo biir ummadda muslimiinta ha kula dabaal degaano markii waxay tiri arintii waxay igu noqotay arin fajicisa waxaan u tagay bay tiri marka arintii ugu yaab badnay waxaan u tagay bay tiri baadariga aan kaniisada 10 kan ka wada bixino waxaan ku dhahay bay dhahday inay arintaas ay haysata oo mar waliba waa la imaada quraan baa leegu aqriya suuratul asr wal asr insan la fi qasr yaasin quraan al hakim adin baan maqla nagu soo bir baa la dhahaya marka aniga xaalkayga ma garanayo waxba igu soo wajah inaan waalan doona laga yaaba arintani ii fasir baan ku yiri bay tiri ninkii baadariga ahaa marka wuxuu ku dhahay waxa ku haya waa waswaas fidnaana kugu soo socota buu yiri ma arkaysa intaad ka jeesid waxa is ilaawsiisid maybe waxa laga yaabaa inaad cidla dareemaysid familkaaga aad u xistay aan lacag ku aruurino aan ku dirno Suudaan familkaaga soo booqo holiday soo qaado wuxuu ugu daray marka arinkani ka qari muslimiinta ha u sheegin cid kalena hal wadaagin arkan gaalada xitaa hal wadaagin adiga kugu ekaada lacag baan ku aruurinayna holidayda iska aad gabadha waxay ugu tiri ninka baadiriga waxaan ku yiri arinka i haya ma ahan ma arkaysa wax u baahan safar ma xalin karo there is something going on around me baytir marka waxba igu soo socday tir aniga waxba igu soo maqan marka waxa jirkeyga ka qaylinaya ama arintani waxaan rabaa in la sharxan u baahnaa baytir adiga marka telefoon ay marka halkaas ku weydiinaysaa su'aalahaas aniga telefoon bay igu sharxaysaa markaas waxaan ku yiri war aan ku siiyay hadaba waxaan ku yiri waali iyo junuun kuuma soo socdo waxa aad maqashay waa quraan jin inuu ku imaado ama shaydaan inuu ku imaado quraan kugu aqrin maayo suuradaha lagu aqriyay laftooda macna gaar ah xambaarsan yihiin baan ku yiri kitaabka Ilaahay haddaan kaaga bilaabo suuratu al-asr إلهي وحو ليهي والعصر إن الإنسان لفي خسر يا إلهي دهري مع عصرك كل عرنا يا ربي عز وجل وحو لي دتك بنا آدنك أو إذن خسارة كسوجيهين خسارة واحد كبد بهذه كلية
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كو هو إلهي الرمي نبي محمد النبي النمذي سير الرمي أو عمل وناكسنا كودري حق الصبر كان ما أركضتك أقدر دارمين dadka kaliya ayaa ka badbaadaya khasaarada bani'aadamka ay ku sugan yihiin buu Ilaahay leeyahay suuradani Imaam Shaafici oo aimada muslimiinta kamida wuxuu dhahay hadii kaligeed ay soo degileen way ku filnaan lahayd dadka marka suurad muhiimad gaar ah xambaarsan waaye adiga ayaa waxa lagu tilmaamayaa baan ku yiri in aad ka soo baxdo wadada asaaran tahay oo iimaan oo ah Ilaahay Nabi Maxamed rumaysid عملنا أتكون درتد با لغو دردار ميا سياد وبدبادل وحنكون بادر إن ما هذا محد سمين جرتين وحيقول تري ولي خمر معبن مزنيسن ضد مدعن ضد معاين إلهي مر ولي بالجنة وضد الصحنا ويدين جري وتري هذا وحنكون إلهي قلب جاو أخرستي وضد الصحنين أيام معك سا إلهي ونكا كوكسو ديما كوير صح مركا gabadhii warkii waa degay way qaadatay waxaan ku suuratu yaasiin aayadaha ugu horeysa ilaahay azza wa jalla wuxuu kugu tilmaamayaa nabi muhammad walo fiirso ilaa adoo kristan baad ahayd nabi ciise waad rumaysantaa laakiin nabi muhammad rumaysneed ilaahay wuxuu ku tusayaa nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam inuu rusushii la soo diray inuu kamid yahay sida ciise aad u rumaysay ina nabi muhammad rumayso ilaahay kugu tilmaamayaa كو قرآن كان إنه سن أهين كتاب نبي محمد جاب كيسة كلا صباحية إنه يهي إلهي كتابه سود الجيي أيا سورة ياسين أي تلمام يسابان كويري تنا وحي كبر يسا إن النبي محمد رميسيد كتابك إلهينا إن قالت بكبر يسابان كويري هذا أنصر دا عمرك شهادتين كل باق شهادتين كل باق شهادتين هرك ورت ما فهمتي بان كويري ما يقول هذا مركز وحن كل شهادتين وإن أتقرتي إله عز وجل إنه كلجي أو يحي إله كلا أسنجرن ولا لا عابده نبي محمد عليه الصلاة والسلامنا إنه يهي رسول إلهي صادري شهادتين كوا الله وضع سقيبان كل إلهي إنه نبي محمد الله وضع إن أتقرتي هي شهادتين كلا نحا مركا مسج كاس هو very clear بانكوير مركا كان وحوسيت تسكوي دينا يا إن دينة إسلامك أسوقشد وأتكون قنتد ورسالة إلهي هذه كوسو دري ويان كويري وأنا رحمة كوسو صعطة والي ما أهم بان كويري أدين كمركا وشنطة جير لغو أدين ميو هذا هو شنطة صلاة وأد كل يبقى نقصو إلهي إيوا في جيبان وقو شرحي وحان كويري شنطة صلاة ضاد أي حين لغو أدين مياه وايو حالغارة ومركا إلهي نبي محمد أرو ما يسد كدب هذا مسلم النقطين إنات شنطة صلاة ضادنا إنات تكتد بالغو أمر يا بان كويري marka waxaan ku yiri kani waa chance ku soo maray oo dadku inta badan aysan helin dadka qaar hidaaya oo dadka xaqooda ka ahaatay ayay helaan laakiin adiga hidaaya min Allah baad heshay qof baa Ilaahay ku soo diray waxay ku wareersaneed inay raadiso Jabir al-Ahmad waxay ugu tiri wadanka uu joogo ee tilmaaninka ee Google garay aan raadininka waxaan rabaa inaan ninka aan raadiyaan rabaa waxaan ku yiri ha raadin baan ku yiri Jabir al-Ahmad waxaan ku yiri Ilaahay baa qofkan ku soo diray ملك ملائكة إلهي كم ذنوية لغياوا وانقف كلو إلهي كو صدر لغياوا جن مسلم إلهي كو صدر نوية لغياوا أذو وانقف إلهي كو صدري حكو وريرين بانكو وريرين مهمة دو حوية الرسالة الإسلام كأنها قادتي وأنت كل قنت أي لغروا كبدي رنا هانتي وحي قلتلي ويدو عيسى هرتا ساعد يشن يتمن دقيقة تلفون كود هذا اللي مركان ويدو عيسى وحي قلتلي شامبل علايسكي صارنا ayaa iga dagay beetire markaad ila hadashay alxamdulillah ilaahay baa mahadaas kale ilaahay baa anna i waafajiyay run ahaantii cilmi aqoon aan leeyahay ahayn marka waxay tiri inaan soo waalan rabo ama arin inay igu soo socoto anigu aan ka baqiyay beetire laakiin hadda culeyskii waa iga dagay waxaana sameeynayaa beetire sida uu ilaahay rabo inaan sameeyaa beetire hadaba waxaan ku ilaahay wuxuu roo inaan soo muslimteen نيو waxay tiri waan soo muslimi diinta islaamka waan qaadanayaa bay tiri khalaas waa baadariyad qofta diinta islaamka waan qaadanayaa bay dhahday laakiin reerkii dhan gaalnimada way sii dhaafeen buu dhaw waa rag mitidiina diinta gaalada ku adag way la dagaalayaan waa baadariyin
أنا وحان أهاي بيتري بادريات أو كنيسة إنت سو أمد يكون حريين أحد الصوص 19 بنقولها بدر كنيسة وحياة كلام إلى وحاكم ذا وضمد يوروب وضمد بدن بيمرتي أي دعوة أمرتي إلى قدس بيتك تجوا الناس iyadoo Kristaan qaafay iyadoo Kristaanka si qudus meelaha oo wanaagsan loo soo tuso maadaama ay baadada iyadoo kaniisada markaysa iyadoo Kristaanka dan faafinaysa markaysa marka waxay tiri qof sahlan ma ahi Facebook-iga hadda gishii tiri waligayba waxaan share gareyn jiray tiri ma arkaysa Christianity aan share gareyn jiray hadda anigu muslim aan noqdo dagaal badan baa ay qabsan doon dhinac walba niyo maxaan sameeyaa bay tiri sida kaana inay arintaana ay ka walwalsan tahay marka waxaan ku dhageyso ilaahay ninka ku imaaday adiga ayuu ku soo diray baan ku yiri fariintaana special message bay adiga inuu kugu socotay nin kale qof kaniisad fadhiyay waalid ehel kuma socon baan ku yiri diintan waa taqaan baan ku yiri baadiriyad baa tahay qabriga hadaad gashid kaliga aad gali doontaa xisaabtii cadaabtii wax waliba alla ku kaliga marka waxaan ku yiri marka ugu horeysa naftaada badbaadi baan ku yiri dadka ha ka walwalin isoo xasuus marka aayada ugu dambeysay gabadha lagu soo dajiyay aan ku sheegi doonaa astaghfar lagu soo dajiyay maahane riyada loogu keenay ma arkaysa loogu akhriyay markaan saas dhex waxay ugu tiri khalaas I don't care others waxay tiri aniga naftayda iyo aakhiradeeda ka fikiraya ismaano waan soo muslimi bay ugu tiri marka maxaa xal ah waxaan ku yiri 3 o'clock ahead ma saan u hadlayna tuuba shaashakada bilawnay 3 bay gaadhay hadda waa 3 baan ku yiri caruurtaada iskuul ka soo qaado oo cuntada si oo ma arkaysa tartiida ha degdegin 6 o'clock hadaad waqti haysid nagu kaalay baan ku yiri masaajidka North Melbourne amsa okay bay ugu tiri waxaan sii balansaday marka wadaadan sii balansaday sheekh magan ilaahay khayr siiyo sheekh aadan saalix sheekh yaxya muadinka masaajidka iyo wadaad kale sheekh maxamed la dhahayo iyo aniga shanteeni ayaa marka alxamdulillah ilaahay uu noo calfay gabadha inaan la fariisano marka sigis intaysan noo iman ka hor masaajidkan ka tagi maqaaxidan qadar ka doontay anoo marka qadadii u fadhiya bay waxay soo wacday 3 baan kala tagnay waxay soo wacday 3:38 minute bay soo wacday meelahaas aduu 4 intaan la gaarin markaas waxay u turay cismaan hadda intaan kala tagnay anoo gaarigaygii wadada saaran ayaa hadana mar kale quraankii ka dhax dhawaaqay bay igu tiri gaarigayga subhanallah waan gariiray markii quraanka ma arkaysa la akhriyo waan gariiray bi tiri xabsiya ay gashaa gaarigii waxay tiri wadadan istaajiyay hazard light kan shitay tiri sida qof ma arkaysa gaariga ka brogaroowa oo kale baawurtina way iga leexatay arintaas ay qabsantay bay u dhahday markaas waxaan ku yiri ma xasuusan kartaa quraanka ها بيقول تري مركا وحال يقول أقريبا اقرأ باسم ربك الذي خلق آيات دي أنقوة دي ما يستري مركا عنيك ما آية سورة داسا يس علم الإنسان ما لم يعلم ويكون جرتي بيقول تري هذا وحان كوير آيات داسنا وحي كل هذا هاي البايبل كان واتق عن آية كتاب القرآن كان بري كل هذا هاي كوير صدق ما دو سيد مركا الحمد لله إلهي وائي وافجي مركا قوادي 6 PM بينوتمي wadaadadii bay u sharaxday wadaadadii markay u sharaxday arintii u sharax baan ku yiri wadaadada waa kuwana wadaadadii bay arintii sidii ugu sharaxday way oysay markii wadaadada sharaxaad ay u bilaabeen iska oysay gabadha ma sha Allah raxmadii ilaahay ku soo degtay ilaahay wuxuu ma arkaysaa marka nawaafajiyay gabadhii baadariyada ahayd intaas oo sano kaniisada ma arkaysaa wax ka aqrin jirtay annagoon de gurigeeda ugu tagin ilaahay ma arkaysaa qofka u soo diray annagana alxamdulillah sabab nooga dhigay sidii baan halkii aan tawxiidka ugu qaban gabadhii ma sha Allah diinta islaamka soo gashay ay naga codsatay magaca in laga bedelo Susan baa la dhahay gabadha from Susan waxay noqotay Zainab bay noqotay ma sha Allah marka alxamdulillah waxaan sameeynay in kutub quraan baan siinay kitaab quraan oo keligii aweyn kitaab quraan ah iyo tafsiir oo carabi ah maadaama carabi ay taqaano hadana kitaab quraan ah tafsiir English aan siinay kitaab kale marka waxaan u helnay oo salaada ka sheekeynaya oo laga bilaabo min at-tahara ila at-taslim kitaabkan waa English carabi ku qoran way qaadatay marka masaajidkan tusnay alxamdulillah way baxday maalintii kale ay soo wacday waxay tiri maqribka marka idinka tagay around 8 something waa magaalada Melbourne adinka soo marinay ila 4 AM bitiri kitaabkii yara salaada ka sheekeynaa isiisan aqrinayay tiri waan dhameeyay tiri kitaabkii min bidaaya ila nihaaya suuratu faatixana waan ka xifdiyay iga dhageysa bay ugu tiri الحمد لله صوت فاتحة كدقستي ويا أخرس قبدي ما شاء الله
gabadhii ma sha Allah gabdha kale muslimiina u tagay ilaa waa loo tagaa duruus baa la siiyaa waa la soo dhaweeyaa ma arkaysa mu'allafatul qulub baa lagu wada hadal alxamdulillah waxyaabo marka cajiibka aan ku soo gabagabeynay marka maalin dhaxdaas hadda intay saa u soo muslintay kadib ayaa haddana mar kale qur'aan loo akhriyay ana marka khayr Allah siimaama nasra muusa la dhahayo oo hooyooyinka dacwada ka wada magaalada Melbourne kamida u dirnayada iyo tiimkeeda ay u sheegaysaa marka anna markii dambe aan la hadli doono ii sheeg ee xaqiijin doontaa waxay tiri aayad baa haddana lagu akhriyay aayadu maxay ahayd baan ku yiri aayadu waxay ahayd bay tiri in yansurukum Allah fala ghaliba lakum وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده haddii uu ilaahay caza wajalla uu idin gargaaro cid idinka guul daraysanaysaa cid idinka guulaysanaysaa ma jirto aayadaasaa lagu akhriyay haddaba indhageysaan ku yidhi aayadda waxay kuu tilmaamaysaa baan ku yidhi maadaama aad soo muslintay inuu ilaahay kuu gargaaray horta cid weliba oo kugula dagaasha islaamnimadaada wayba jiri doontaaye ilaahay baa kuu gargaaray kaama qaalib noqon doonaan baan ku yidhi ee adiga ayaa waxaa lagaa rabaa inaad sabirtid baan ku yidhi gabadhii alxamdulillah aad bay u faraxday ilaa yowmina haada ما شاء الله وجبر دين تحسين إني برته ما أنت إذا أنا أحد أنا ويكباقته الحمد لله برنامج كي كنيسة درس كنيسة يكون هيد ويكباقته ما شاء الله جزاكم الله خير قصص أسوي على شيء وقصة لو عفقات حقيقة إلهي سبحانه وتعالى قفك هنون لدونينا عد باديين كرتمر قفك إلهي باديين عد هنونين كرتمر